Soo bandhigidda hal-abuurka qof walba bini'aadam ah waxa uu leeyahay hal-abuur, laakiin waxa lagu kala duwan yahay ayaa ah garashada hal-abuurka iyo hirgelinteeda. Sideedaba waqtigan la joogo waxaa la qiimeeyaa qofka leh hal-abuurka iyo xirfadda, sababtoo ah waxay ummadda ku soo kordhiyaan faa'iido fara badan. Qofka leh xirfadda waxa uu maarayaa noloshiisa iyo weliba nolol kale oo ku xiriirta. Haddaba haddii aadan lahayn wax xirfad ah, waxaad haysataa fursad aad ku baran karto xirfado fara badan oo aad ku shaqaysan karto mustaqbalka dhow. Waxaan doonayaa inaan halkaa idinku soo gudbiyo xirfadda aan idin hayo maanta. Waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan hadduu eebbeedmo. Waxaa hadda idin muuqda waa SaaL Digital Marketing, waa tijaabo aan sameeyey oo aan ku soo bandhigayo adeegga aan dadka u qabanayo. Qaybta hoose waxaa ku qoran qaabka la ila soo xiriirayo oo ah tusaale. Marka haddii aad samayn karto barnaamijkan, waxaad u baahan tahay customer iyo wixii aad adeegga ku bilaabi lahayd oo ah website. Waxaa kaloo idin muuqda tijaabo labaad oo aan sameeyey sidii aad u soo bandhigi lahayd boorkan oo kale oo ah baraarujin waxbarasho. Sidee wax loo bartaa? Yeelo jadwal iyo go'aan. Baro waxaad jeceshahay. Yeelo rabitaan dhab ah 100%. Waxaa kaloo baran kartaa sida loo design gareeyo galka foonka oo loo yaqaano phone case. Haddii aad barato design-ka, waxaad kaliya u baahan tahay inaad soo iibsato mashiinka phone case. Wixii intaa ka badan waa xirfad aad ku shaqaysan karto. Sidoo kale waxaa idin muuqda sida loo sameeyo banner-ka iyo flyer-ka oo ah noocyo ka mid ah xayeysiiska oo meel walba aad dhigi karto, gaar ahaan meelaha dadka ay ku badan yihiin, kadibna sidaas lagula soo xiriiro. Haddaba go'aanka adiga ayaa leh. Wax kastoo ku anfacayo waad baran kartaa. Waqtigaaga ka